waxaa igu sahlan meesha sheekhi aan ka dhagaystay markaan marahaya hadda yaan u jeclahay ishkaal bigagama jira marka wixiis oo dhan baa nuur ahaa waxaa la yidhi ninkaan fiicanaynoo kelimada ka soo baxdana waa sida ka duqaan qiiq oo kale weeyaa la yidhi dadka ma anfacayso marka ilaahay waa nagu anfacay qoryooli baan ka soo tagayo manhaajkii iyo yaan soo akhristay iyo carabidii iyo waxaan ka soo akhristay markii manhaajkii iyo qawaacidii iyo aan soo dhameeyey aan is-iri bal xamar aado marka sheekhan oo marka tafsiir maqaamka ku galaya marka yaan arkay oo sidii sheekh cabdillaahi sheegay musxaf marka culimmadii waxay yidhaahdeen innahu shaarixun laa yaxtaaju ilaa shaarix isagaaba shaarix ah layidhi ninkan oo sharax uma baahno saasayna iska ahaydo isagoo matniga galahayo shaarix iska ahaa marka insha allahu tacaalaa nin ilaahay u gargaaray oo ilaahay jeclaaday hamigiisaba diinta bas ay tahay ayuu ahaa marka sheekhaas haddii fadaa'isha uu leeyahay iyo dhahalka uu noo reebay wax weyn buu noo reebay nin la hilmaami kara ma aha mar kasta inaan u ducayno ducada salaatuleylka aan ugu ducayno maxaa yeelay wax la dhahalo wax u wanaagsan ayaan ka dhahalnay oon ka qaadannay marka sheekhaasi naftiisa ilaahay buu u huray anugu markuu sheekha dhintay waan rajoogay aaduu ii xariirin jiray mar waa ii yeeri jiray mar hadiiduu ii soo dhiibi jiray maalintuu baxayay aakhira cumri oo gaariga u heleeli doona yuu ii yeeray waan dardaaramaynaa kaale safara ay soo galay buu yidhi markaasaa lacag adigu kuu soo tiro badan buu isiiyey markaasaan anugu sheekhaagii oo ku siyaaranayo wax ku siinayo wax wanaagsan markaas aad baan u duceeyey marka anugu iska daldalmahaya hadday sheekhal wax la siiyaan ahay moogta markaasaa yidhi waxaad yeelaysaa hal meel uun ku toos buri hal meel khaatamada aniga maanta adduunye iyo waxaas rajo kama qabuul martabay ha igu ducaynina khaatamada igu duceetiyaan hilmaamo waaye markaasaa igu dambay ismaba arkay sheekh waa tii dhintay bay ahayd tii meydkiisa lanoo keenay ilaahu jannada lagu kulmay ilaahuma ihsaniya marka sidaa weeye insha allah anaaba iska xanuunsane intaasaan kusoo koobahayaa idinkuna waad mahadsantihiin baarakallahu fiikum xagga akhlaaqiyaadka sheekha marka laga hadlayo akhlaaqdiisii caaliyay ahayd waxaana fahmi karaa qofka la dhaqmahay jugta markay dhacday sheekha waa i wacay waa imid aniga sheekha gurigiisa u dejiyey sheekhaygii waay gurigiisaan deganahay habeen waqti dambe albaabkaa lay garaacay haddaan furay sheekh maxamed macallim waay sheekhaygi maxaa daran mayuu yidhi galaaskan caalam ku keenay adiga baa ii adeegay aniga yaa aniga agtaadaan wax ka rabaa mayuu yidhi duriyadii shacalmayaa tahay yaa waalidin adeega
الله والحمد لله كثيرا